madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta ka soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garaadweyne ee magaalada Jijia wafdi ka socday Kuuriyada Koonfureed. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa ugu dambeyn ku qaabilay xarunta madaxtooyada kulanna kula qaatay wafdiga ka socday wadanka Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale mas'uuliyiin sare oo ka mid ah hay'adda WV. Warbixin kooban oo markaasi ay ka siiyeen maamulka deegaanka Soomaalida xaaladda deegaan gaar ahaan barakacyaasha waxay sheegeen in door muhiim ah ay ka qaadan doonaan dadaalka ay xukuumaddu ka wado dhinaca barakacyaasha. Waxay kala sheegeen inay gurmad degdeg ah gaarsiin doonaan. Dhanka kale dowladda ayaa sheegtay inay kala shaqeyn doonaan mashaariicaha horumarineed ee markaasi la doonayay in dadka lagu caawiyo. Deegaanka Soomaalida ayaa abaar xooggan ay ka jirtay muddadii u dambeysay iyadoo markaasi dadka ilaa haatan ay biyaha iyo waxyaalaha daruuriga ah ayna haysanin. Hay'adaha kala duwan ee ku soo qulqulaya deegaanka Soomaalida ayaa weli waxa u muuqdaan deegaanka Soomaalida waxaa ku soo qulqulayay hay'ado kala duwan kuwaas oo sheegay inay doonayaan inay caawiyaan dadka abaaraha saameeyeen. Madaxkiin Gimaadiid warbaahinta kulmiye Jijia u doona Soomaali Suudanes Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudanes waa badqabka bulshadeena.